saaka cabaara 7 subaxnimo waxa guud ahaanba Soomaaliland loo dareeray codeynta doorashada madaxtinimo ee dalka. Goobaha codeynta aanu goobjooga ka ahayn gobolka Gabiley waxay u socdeen sidii loogu talagalay, waxaana shacbiga reer Soomaaliland u soo baxeen doorashada murashaxa noqon doona madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland. waxaana shacbigan u soo baxeen sidii ay codeyn lahaayeen. Allahumma salli ala Muhammad magacaygu waa Nuuridiin Calaamaan. saaka saddexdii habeenimo yar guriga galay waanu codeyno codkii waanu ridnay. maanta doorashadu waxay bilaabantay sidii loogu talagalay uga bilaabantay goobihii ama maray si habsamiyana u socotaa, dadkuna si fiican bay codka u bixinayaan, kuyuuna aad buu dheer yahay. Koon saaka aad codkaaga ma soo dhiibatay? haddaan ka soo baxay waan soo codeeyay. ka waran jawiga goobta aad ka codeynayay? goobtaan ka codeynayay run ahaantii laba goobood bay ahayd oo isku aga goobi si fiican u socotaa. marka waxaan leeyahay doorashada natiijada ka soo baxda shacbiga Soomaaliland sidii wanaagsaneed u soo wadeen natiijadana waa